assalaamu calaykum. Ma jirtaa mar aad dareentay in qof kula hadlaya uusan runta kuu sheegin? Mararka qaar qofku erayadiisa wuu qarin karaa, laakiin jirkiisa iyo dhaqankiisa ayaa laga yaabaa inay muujiyaan calaamado yaryar. Maanta waxaan baranaynaa 10 calaamadood oo muujin kara in qof been kuu sheegayo. Laakiin muuqaalkan waxaan ku bilaabaynaa 5 ugu horeeyay. 5 ugu dambeynna waxaan ku sii bandhigi doonaa qaybta labaad. Ha ilaabin inaad subscribe saarto, sababtoo ah qaybta labaad waxaa ku jira calaamadaha ugu yaabka badan. Aan bilaawno. Lambarka 10aad wuxuu kuugu celceliyaa su'aasha. Markaad qof su'aal weydiiso, halkii uu si toos ah uga jawaabi lahaa, wuxuu marka hore kuugu celiyaa isla su'aashii. Tusaale ahaan, waxaad tiraahdaa, "Ma adiga halkaas joogay?" Isaguna wuxuu kuugu jawaabaa, aniga halkaas joogay." Mararka qaarkood tani waxay noqon kartaa hab uu isku siinayo waqti yar si uu maskaxdiisa ugu diyaariyo jawaab ku habboon. Lambarka 9aad wuxuu bixiyaa faahfaahin aad u badan. Qofka runta sheegaya badanaa wuxuu si toos ah ugu jawaabaa su'aasha. Laakiin qofka been sheegaya mararka qaarkood wuxuu bilaabaa inuu bixiyo faahfaahin badan oo aan xataa la weydiin. Wuxuu sheegaa waqtiyo badan, magacyo badan iyo sheekooyin dheer, isagoo rajaynaya in faahfaahintiisa ka dhaadhicin doono inuu run sheegayo. Lambarka 8aad isbeddel lama filaan ah oo ku yimaada dhaqankiisa. Haddii qofku markii hore deganaa, laakiin marka mowduuc gaar ah la gaaro uu bilaabo inuu gacmaha si badan u dhaqaajiyo, kursiga isku beddelo ama wejigiisa taabto marar badan, tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa walwal. Laakiin mar kale xasuusnow, walwalku keliya ma caddeeyo been. Lambarka 7aad waqti ayuu qaataa ka hor inta uusan jawaabin. Qofka runta sheegaya wuxuu maskaxdiisa ka soo xasuustaa wixii dhacay. Laakiin qofka been sheegaya wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo sheeko cusub oo aan isburin. Taasi waxay u baahan tahay waqti yar. Sidaas darteed waxaad dareemi kartaa hakad gaaban ama fikir dheer ka hor inta uusan jawaabin. Lambarka 6aad codkiisa ayaa isbeddela. Culimada cilmi nafsigu waxay sheegeen in dadka qaarkood codkoodu isbeddela marka ay dareemaan cadaadis. Waxaa laga yaabaa inuu codku sare u kaco, ama uu si degdeg ah u hadlo, ama uu hadalka kala gooyo. Dhammaan arrimahan waxay noqon karaan calaamado mudan in la fiiriyo. Waxaan halkan ku joojinayaa qaybta 1aad. Kuwani waxay ahaayeen 5 calaamadood oo kaa caawin kara inaad fahanto dhaqanka dadka. Qaybta 2aad waxaan ku soo bandhigi doonaa lambarada 5aad ilaa 1aad. Markaas waxaad ogaan doontaa calaamadaha ugu xooggan. Haddii aad rabto inaad aragto qaybta 2aad, subscribe saar oo daar gambaleelka si aadan u seegin. Mahadsanid daawade.